مرحبا الحمد لله رب العالمين هو بنا سعينا على أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقيا عن ترسيد حسين وحن بركة حرونتا بافو أي مقالة مقدشة waxaan soo wadnay barnaamijkeeni yahay QuickBooks Online waxaan kusoo guda jirnay in aan hospital oo qaybta ilkaha aan xisaabaadkiisa aan sameynaynay waxaan imaanaynaa dhacdada 18 bisha dhacdadan waxay la xiriirtaa qarash la bixiyay waxaan soo furnaysaa buuggii QuickBooks Student Handout oo dhacdooyinkeena ugu qornaan introductionska haddaba 18 bisha waxaa la helay isla markaasna la bixiyay qarashkii telefoonka waxayna gaaraysaa $100 qoladii telefoonka waxay soo gudbiyeen in bishaan telefoonka la isticmaalay qiimahan ay gaaraysa $100 marka lacagtii markii soo gudbiyeen isla markiiba check ayaa la qoray numberkiisa 4 uu yahay lacagta hore laga bixiyay waxaan rabnaa marka dhacdadan inaan gelino dabcan expense ayaa la bixiyay telefoonkaas lacagtiisana wuxuu noqonayaa qarashkaasna wuxuu ka soo muuqan doonaa qaybta profit and loss ka ama income statement-iga qaybta expense-da ayuu ka soo muuqanayaa marba qarash hadii la bixiyo hadda faa'iidadaada way yaraanaysaa qarashka wuxuu keenaa faa'iidada inuu yareeyo dhacdadan waxay saameyn ku yeelanaysaa laba akoonka hore wuxuu noqonayaa utility expenses akoonkaas waxaa loo isticmaalaa wixii qarashaadka la xiriira telefoonka biyaha korontada ayaa lagu shubaa wixii utilities ayaa hal mar lagu wada shubaa marka utility expense dhinaca dhibidka ayay lacagtaas ku soo dhacaysaa waa la dhibid garaynayaa creditka waxay noqonaysaa akoonkii lacagta aan ka qornay oo aan ka bixinay inaan ku qorno akoonkaas wuxuu noqonayaa checking account checka markii la qoro bangiga laada lacagtana bangiga ayay ka baxsanayaan qolooyinkan telefoonka biilkiisa soo dalacday marka checking account-kana waxa uu noqonayaa credit marka dhacdadan waxay keenaysaa in utility expense-ga uu ziyaado expense-ga dhinaca dhibidka ayuu ka ziyaadayaa checking account-ka asad way uu yaraanayaa dhinaca credit-ka ayuu ka yaraanayaa marka saameynta dhacdadan la imaanaysaa waxay tahay expense-gana uu ziyaadayaa utility expense checking account-kana wuu yaraanayaa lacagtan waa la bixiyay expense-yana lagu bixiyay waana la qaadanayaa hadhow markii check la qoro qofkii loo qoro bangiga ayuu tagayaa lacagta bangiga ayuu kala bixi doonaa waxaan soo galay QuickBook Online-kayga waxaa soo furtay kambanigayga Bafa Dental Clinic waxaan rabaa dhacdaas inaan diiwaan geliyo waxaan imaanayaa create inta wax ka dambeeyo qaybtan supplies-ka aan soo gudbayaa bacdama jag la qoray numberkiisa 4 uu yahay waxaan ka bixinayaa daaqada jag amba right jag aan ka bixi doonaa journal-ka waa ka samayn kartaa caadi waaye laakiin aniga jaggaas isticmaali doonaa marka jag ayaa hal mar gujinayaa si toos ah daaqadii jagga ayaa u galayaa kor wuxuu ku leeyahay yaa la siiyay la sii aniga waxaan siinay Hormuud Telecom qoladaasaan siinay adniyo ayaan taabanayaa akoonka lacagtan ka bixinay waxay noqonaysaa maybe supplier-ka raba inuu abuuro waxaan leeyahay bal magacaas le ku reeb sif ayaan iska taabanayaa waxaan rabaa si degdeg inaan ku sameeyo magaca akoonka lacagta laga bixinaa waxay noqonaysaa checking account lacagtan inta laga bixinin 11450 ayaa ku jirto jeega la qoraayo wuxuu noqonayaa 4 jeega afaraad qaybta hoose taariikhda la taagay ayaan ku dhaafi doonaa qaybta hoose ee category-ga ayaan soo gudbayaa hal mar ayaan gujinayaa inta wixii ka dambeeyay waxaan soo qabanayaa akoonka expense-ga UT markaan qoro akoonkan waa abuuran yahay utility expense asaga ayaan soo qabanayaa waxaan leeyahay telephone bill lacagta telefoonka ayaa laga bixiyay kadibna faahfaahintii markaan ka soo gudbo qaybta amount-ga ay amaanayaan lacagta la bixiyay waxay noqonaysaa $100 ayaa rabnaa inaad diiwaan gelin qaybta kor amount-ga wuxuu noqonayaa $100 waxaan maleynayaa wax walba okay waaye waxaan taabanayaa save and close waa save garaynayaa daaqadan waa iska xiri doonaa marka wuxuu ku leeyahay jag afraad waa la save gareeyay reports ayaa soo gudbayaa profit and loss-ka ayaa rabaa inaan fiiriyo marka profit and loss-ka ayaan hal mar gujinaynaa waxaa soo galayo akoonkii hoose utility expense lacag $100 ayaa kasoo muuqanaysa sababtoo ah expense la bixiyay ayuu noqonayaa marka haddii aan waxyar iska laabo qaybta hoose haddaa fiirisid utility expense ayaa soo galaya waa kana utility expense $100 marka 3,000 ayuu kasii go'i doonaa marka waxay noqonaysaa faa'iidada net income-kan amba net earning waxaa noqonayaa 2,900 waxaan taabanayaa back to standard report-kaas kadibna balance sheet-ka ayaan soo qabanayaa lacagtan $100 si toos ah waxay uga do'i doontaa checking account-kan ayay ka baxaysaa marka balance sheet-ka markaan ku soo laabto oo wax yar iska daboolo lacagtan si toos ah checking account-kan ayay ka go'aysaa marka balance-ga checking account-ka 1,450 ku jirtay 100 ayaa baxday marka lacagtaas hal mar gujinayaa si aan balance sheet-ka checking account-ka calooshiisa saa u galo
oo aan ku tuso lacagta meesha ka baxday inta ay la-eg tahay $100 wuxuu noqonayaa dhacdada ugu dambeysay oo aan sameeyno waa kana dhacdada ugu dambeysay ayuu noqonayaa daaqada jag ayaan kusoo gelinay ebel journal aan isticmaalaynay marka hormuud ayaa la siiyey checking account ayuu ka baxay utility waa expensiga uu ku shubmaday waay hore 11450 u taalay 100 ayaa hadda la bixiyay 11350 ayaa harayso back to summary report ayaan kusoo laabanayaa marka lacagta hadda balance sheet-ka qaybtan checking account-ka kusoo hartay waxay noqonaysaa 11350 markii 100 laga bixiyay marka expensiga utility waa ziyaaday laakiin faa'iidada ayuu yareeyay checking account-ku waa yaraaday sababtoo lacagtaas waa la bixiyay maanta insha Allah taala intaas ayaan ku hakinayna meeshaan ka sii wadi doona 10 soo socda hadii la raado subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh